إن شاء الله تعالى ما توحين قادم طونا 10 كورس عبسان سيدا الله سميو HTML tables كا أما أدو سمين لهي table لو أديكو استعمال يا HTML هطبعا نقول قلنا 10 كا فضلا هدياتكم عصوب تحي channel كا سبسكرايب قريسي كوسو قارن 10 آدكو قيمة بدن يسو سعودة آد بدو محسن تحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وذا لبن ميديا سي أينو سمينو تيبل ذا كالدون HTML كا وقاب كان وهل كانوا heading key أما عوانا ذي columns كالدون horta adi ahaan table-ku waxay ka kooban yahay columns oo kuwan oo tag iyo rows oo jiifka waayahay marka rowga koobaad waxa laga dhigaa waxa weeyaan waa ciwaanka inta ka hooseysana daatada caadiga ahayd baa galaysa marka aad sameynaysid table wax isticmaalaysaa tag la yiraahdo table tag row kastana waxa lagu define garanayaa table row tag la yiraahdo table row marka hore waxaad qoraysaa table waxaad ku xijinaysaa table row okay haddii aad doonaysid inaad ciwaan ka dhigtid table-ka koobaad waxaad oranaysaa table heading baad ka dhigaysaa tag la yiraahdo table heading waa isticmaalaysaa caadi ahaan markaan ku hadlayno headings-ka table-ka badankoodu waa bold fort way yar burburan tahay waana centered dhexda ayay taalaa markaad doonaysid ciwaanka markaad ka timaadid waxyaalaha ka hooseeya oo dhan waxaad isticmaali doontaa tag la yiraahdo table data ama table cell oo td tag waaye haddaba si aynu u eegno qaabka loo sameynayo inuu practical u eegno waxaan soo furanaynaa text editor-keenii atom marka aynu soo furano text editor-keena waxaynu qoraynaa tag la yiraahdo table waxaynu ku horeysiin karnaa qoraal this is our table this is our table table-ka marka aan furno tagga table waan xiraynaa tagga marka aynu xidhno table tagga waxaan qoraynaa marka table rowga koobaad oo aynu ugu talagalnay inuu noqdo heading-ka ayaan qoraynaa table row waan soo xirayaa table rowga waxaan markaa gelinayaa table head oo ciwaankii columns-ka kala duwan waxaan qorayaa markaa magacii oo name waan soo xirayaa table head waayahay imsa heading baan doonaya imsa row waxaan ka dhigayaa 3 kan waxaan ka dhigayaa markaa ka koowaad waxaynu ka dhigi doonaa id ama number magaca iyo course oo qaato qof intaas waa ciwaanadii ayaynu ku sameynay marka rowgii koobaad wuxuu ka kooban yahay 3 column oo id name iyo course dabeetana iminka waxaan gudagalaynaa inaynu qorno heading-yada wixii soo hoosgeli lahaa id-ga 1 2 3 name-ka liibaan jaamac saasoo kale courses-ka html css okay waxaan qoraynaa mar labaad table rowga labaad waxaanu ka dhigaynaa table data waxaan odhanayaa marka id-ga waxaan ka dhigayaa number 1 waxaan soo xirayaa table data waa aan soo koobiyeysanaya dabadeetana waxaan odhanayaa control v ka labaad wuxuu noqonayaa name id-gu waa 1 name-ku wuxuu noqonayaa liban media waayahay course-ka la dhigayaan wuxuu noqon doonaa html waayahay markaan intaa dhamay waxaan soo xirayaa table rowgii hore aan soo furnay table row waay waa aan save garanayaa control s baan sameynayaa dabeetana waxaan soo furanayaa web page-keenii si aynu eegno in uu wax iska bedeleen hadda sidaad arkaysaan waxa soo baxay table baa soo baxay id name course laakiinse ma laha border haddii aan doonayo inaan border u sameeyo waxaan tegayaa text editor-keenii waxaan tegayaa halka table ay ku qoran tahay border attribute-ka border baan isticmaalaya dabeetana 1 baan ka dhigayaa control s baan odhanayaa refresh baan ku sameynayaa page-keenii sidaad arkaysaan hadda waxaa sameysmay id name course 1 liban media html okay haddii aad doonaysid inaad border-kan waa laba waad ka qurxin kartaa adoo isticmaalaya css insha allah waanu iman doonaa qaabka loo qurxinayo laakiinse hadda waxaynu ku joojinaynaa border-ka number 1-ka aynu isticmaalayno
waayahay waxaa kaloo kusii daraynaa row kale control v mid kalaan kusii dari karnaa control v okay magacyada id-yada baan ka bedelaynaa id-yada kale waxaan ka dhigaynaa 2 maxamed baan oranayaa waa html iskagada number 3 jaamac way control s baan oranayaa waxaan tegayaa page-keeni baan tegayaa refresh baan ku sameynayaa okay iminka waxay noo sameysmay 3 row iyo heading-kii oo runtii ah id name iyo course marka aynu eegayno border-ka waxa kale oo isticmaali karnaa inagoo isticmaalaynaa style attribute style waxaanu ka dhigaynaa markaa width-ka ama ballaca waxaanu ka dhigaynaa 100% yani ha ku wada fadhiisto page-keena oo dhan hadeeqo control s baan sameynayaa waxaa ku noqonaya page-keeni waxaan ku noqonaya page-keeni refresh baan sameynayaa iminka sidaad arkaysaan 100% markaan ka dhigay table-kii waa u fiday dhammaan waxa uu 100% la ekaaday page-keena intii ka banaanayd waaya insha Allah ta'ala casharkeena maanta halkaas ayuu noogu joogi doonaa intaan ku kulmi doono cashar kalameeda waxaan kaga tagayaa anigoo ah Liban Jaamac السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضلا هديو ku cajibay video-gani ha ilaawin inaad like gareyso channel-kana subscribe gareyso si aad noogu dhiirigeliso inaan sameyno casharo iyo duruus intan ka badan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته